وقريتي وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى إنه أقول نمعي إن أن السجون سن بدأ السجون ماذا مضشان ما أنت أن كفر إنه كفرق السدحات البرلمان كفدرالك الصومالية وأن كل جدنا إنه واجب كي دستوري جاها ونفرق الدستور كجمهورية فدرالك الصومالية مركز حكتة وحان دونا يا إن أن سر رسمي إذن كوب بوجاديو حل جدشدي حر دجنتي كالفرق لبعض أدوري وسوق قبتين كاس أو تاريخي أتكو أنس حسين كو يطمع شرعي أو أن هوري كالفردية إني أنا أدعين شرعية داس أو دمانتو كو يطمع كشرعي أو مهم وها فلنت دناها قرنكا سيدات كينتا أمنيكا كرسيمها دقالها يسوعينتا هجاجينتا أذيجدا أساسية شعبك أو وجوه أقونسيدا قرنكا سيدو كله وحان إذا كوب قادين يا للسدة قدية برلمانية وحل صار دبو إيجستا لصعدك هرجرينتا دستورك إيه أنصحنتا حبناها قدية مدح بنان دبو إيجستا إيو دقنجلنتا دستورك جمهورية فدرالك الصومالية كواس أو هرمود دذلك دمسترك دبو إيجستا دستورك ولا ليال دستورك إن مددر أيوكم بالجارها أو أتقرن إنسان intaana isku daya ayaa socday oo lagu dhaqan gelin la rabay in lagu dhaqan geliyo dastuurka hase yeeshee nooma ayan suuroobin waxaan rabaa asbaabaha ay noogu suuro geli weyday inaan dib u eegis ku sameeyno haddii aan nahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qaybta ugu muhiimsan maxaan ku dib u eegista dastuurku ay saaran tahay iyadoo ay tahay ajanda qaran asbaabihii hore noogu suurto gelin waayay in dastuurku uu noo dhaqan galo iyo wadooyinkii aan horay u marnay ee noo suurto gelin waayay in dastuurka uu noo dhaqan galo oo noo dhamaado markan waa inaan ka leexannaa markan waa inaan wada aan ahayn oo cusub oo noo suurto gelin karta inaan gaarno in dastuurka uu ansaxo inaan qaadno weeye walaalayaal dastuurna looma samayn karo dastuurka waa inaan annaga samaysanaa kow sidaas daraaddeed waxaan ku dardaarmayaa oo dardaaran waaye aragnimo ku salaysan ay tahay dastuurka yaan mashruuc laga dhigin yaan loo raadinin kaalmo ajnabi ah yaan lala aadin dalka dibaddiisa si looga soo shaqeeyo dastuurka dalkan iyo dadkaana iskale xoolaheennu hadday yar yihiin xoolaheenna aan ku samaynayna dalkeennu haddii duruufiisu adag yihiin waa dastuurkiisii dalkeenna dhexdiisaan ku samaynayna maalin walba meeshii ay duruuftu noo saamaxaysa aan tagno degme hebel gobol hebel dowlad goboleed hebel meeshii aan doonno markaa isdhaano deganaanshihi ayaad muddada kooban ee laga shaqaynayo waraaqaad dastuurka lagu qabanayo laakiin haddii aan mashruuc ka dhigano oo muhiimadda aan u baxayna ay noqoto waa ku soo nasanayaa waa intii hore ogaada meeshii aan ku soo dhammaa jirnay ayaan ku soo dhammaanaynaa taasi waa iga dardaaran iyo maxaan ku idhaha coodsi hadal jeedintayda furitaanka kalfadhiga saddexaad waxaan ku dul istaagayaa arrimo ay ugu muhiimsan yihiin amniga qaabaynta nidaamka siyaasadda iyo dhammaystirka arrimaha masiiriga u ah dowlad dhisidda dalkeenna iyo horumarrada laga sameeyey dhaqaalaha iyo kobcintiisa kow amniga walaalayaal markii xilka naloo doortay dhammaanteen bishii sanadkii 2022 amniga dalka wuxuu ku sugnaa xaalad aad u murugsan waxaan durbadiiba qaadanay tallaabooyin dhiig joojin ah iyo kuwo ku salaysan istiraatiijiyada mustaqbalka dhow iyo midda fog maanta oo aan xilka hayn muddo sanad ah waxaan ku guuraysanay inaan xaalad midii hore ka duwan oo ka muuqaal wanaagsan oo laguna faani karo inaan suurto gelino waxaan dib u habeynay ciidamada waxaan dib u soo celinay kala dambeyntoodii iyo wada shaqayntoodii qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida waxaan ka fogeynay oo aan ka saarnay ciidamada qalabka sida inay ku milmaan siyaasadda oo aanay sanadka aan joognay aanay dhicin dadaaladaas iyo kuwo kaleba waxay inoo sahleen in howlgallada dib u hanashada amniga dalka iyo ciribtirka khawaarijta al-shabaab laga soo hooyo guulo waaweyn oo wax ku ool ah waxaan dib u hantay gacanta geesiyaasha
ciidanka qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed soo galay dhul aad u ballaaran oo muddo 10 sano ka badan ay ka talinayeen khawaarijta al-shabaab goordhow waxaa dib u bilaabanaya wejigii labaad ee howlgalladaas kaasi oo noqonaya midka lagu soo afjaraya jiritaanka khawaarijta al-shabaab haddii alla idmo khawaarijta al-shabaab waa cudur daawadiisu ay tahay in la dabar gooyo oo kaliya dawladda aan anigu hogaamiye madaxweynaha ka ahay oo aad adigu ii doorateen waxaa go'aan iga ah in la cirib tiro al-shabaab loogu galo goob kasta iyo god kasta oo ay ku jiraan meel kasta oo dalka ka mid uu ku yaalo waxaan aaminsanahay in dagaalkoodu yahay waajib diini ah oo saaran qof kasta oo muslim ah oo Soomaali ah annagoo aragtidaas ka duulayna ayaan abaabulnay culamaa u diinka Soomaaliyeed waxayna si geesinimo leh uga soo horjeesteen una soo saareen fatwo cadaynaysa khawaarijta al-shabaab iyo waxayeen istiraatiijiyada cusub walaalayaal ee aan shabaab la dagaalkeeda u dejinay qarsoodi ma aha horena waan u sheegnay shabaab military ahaan loola dirirayaa shabaab ideology ahaan iyo fikir ahaan loola dirirayaa laana diintii naga afduubeen inaan diinta tuuge khaa'imiina oo mafia inay yihiin oo maro ama teendo diinta magaca diinta islaamka hugsada inay yihiin inaan teendada ama marada ay hugsadeen aan ka fiidno oo shacabka Soomaaliyeed ay arkaan aad ayaan ugu bogaadinaa culimada Soomaaliyeed inay arintaasi ay ka qaateen qayb aad iyo aad muhiim al-shabaab waxay ku gafanoobeen oo ay ku weynaadeen oo ay ku buraan ay nagu dileen oo ay nagu duleeyeen dhaqaalaha aan leenahay annagu xoolaheen dhaqaalaheen aan leenahay dadkeena mar ay yiraahdeen waa zakaa laga rabaa oo khasab ah mar ay yiraahdaan tabarucaadka jihaadka laga rabaa mar ay yiraahdeen maxaa qaaraana laga rabaa si kasto oo ay xoolo uga qaadi karaan uga qaadin waxa inta ka daran si dadka ay nolol hoose ugu noolaadaan cabsina ugu noolaadaan inay tacbadaanna waa u diideen xoolihii noolaayna waa kuwa sanadba 3 jeer 4 jeer ka sii quusanaya oo ka wata niman sidaas ah oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ku hayay ayay ahay kuwa magaalooyinka joogana in ay qarxiyaan oo dilaan kuwa baadiyaha joogana inay xoolaha ka gurtaan iyo kuwa magaalada jooga intaba saddexda waji ee dagaal intaba dadka Soomaaliyeed iyo dawladoodu horumar la taaban kara ayay maanta ka sameeyeen waxaa sidoo kale taageero iyo garab istaag uga raadsanay cid kasta oo nala garab istaagi karta dagaalka xaqa ah ee aan ugu jirno inaan khawaarijta dalka ka ciribtirno arxan la'aantooda waxaan rabaa inaan labada gole ee baarlamaanka sharafta leh hortiisa hoosta uga xariiqo in dagaalka al-shabaab uusan ahayn mid dana siyaasadeed laga leeyahay ama ajanda siyaasadeed oo dhow iyo mid fog intaba mid laga leeyahay inaanu ahayn dhiigga iyo amniga shacabka Soomaaliyeed ma aha mid siyaasad iyo gorgortankeeduba ka furan yahay sidaa daraadeed waxaan aaminsanahay inay waajib tahay in laga fogaado isqabqabsi kasta oo siyaasadeed oo fursad looga mashquula u abuuri kara khawaarijta haddii alla yiraahdo haddii aan intaasi uga gudbo dagaalkeenna ku aadan ciribtirka khawaarijta waxaan doonayaa in aan idinla wadaago shaqada baaxadda leh ee ka qabsoontay sugidda amniga caasimadda oo isbeddel badan laga dareemaya maanta welina ay wax u dhiman yihiin isbeddelkaas wuxuu ku yimiday dib u habaynta iyo dib u eegis lagu sameeyey hay-adaha amniga ee caasimadda ka howlgala iyo wada shaqayntooda waxaan sidoo kale la kordhiyey tirada ciidanka ee sugaya amniga caasimadda kuwaas oo qaatay tababar ciidan oo sareeya lehna anshax wanaagsan oo ay kula dhaqmaan shacabka ay ilaalinayaan sharaftooda iyo badqabkoodaba sidoo kale dhismaha iyo tayeynta ciidanka ayaan sii laba jibaarnay waxaa inoo suurto gashay qaar ka mid ah saaxiibada caalamka inay naga kaalmeeyaan inaan dhisanno ciidankii qaabaysnaa ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ka koobnaa ciidamada maanta dawladdu ay dhistay ama ay dhismahooda ku jirto
tiradoodu kordhinayso si ay ula wareegaan amniga dalka bisha December 2024 walaalayaal in badan ayaan danaheenna oo ugu horeeya amnigeenna aan aad iyo aad ugu tiirsanaanay kaalmada caalamka waa ka mahad celinayna caalamka kaalmada uu noogu fidiyey inaan helno fursadaas amniga lagu sugayo laakiin hadda waxaa la joogaa waqtigii aan amnigeenna iyo taladiisa dalkeenna aan la wareegi lahayn oo ah markii ugu horreyso ayaduna dowladnimadeenna meesha ay ka hana qaadi lahayd dal sovereignty-ga ama gobnimada dalkeennuna maalintaas unbay dhabtahay haddii alla yidhaahdo waxaa kale oon rabaa qodobka labaad dhammaystirka howlaha masiiriga ah ee dowlad dhisidda dalkeenna oo asaguna inaan geedi socod cusub ka galna ay tahay mudanayaal iyo marwooyin sida aad og tihiinba tan iyo markii la ii doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan guddoomiyey 6 kulan oo golaha wadatashiga qaran oo ah madal lagu gorfeeyo heshiis siyaasadeedna looga gaaro arrimo badan oo masiir u ah qarankeena hor yaalla oo ugu horeeyaan federaaleynta dalka iyo ilaalinta wadajirka iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed maad ka gaarta Allah subhanahu wa ta'ala kulamadii u qabsoomay golaha wadatashiga qaran waxaa ka soo baxay heshiisyo siyaasadeed oo 10kii sano ee la soo dhaafay horey loo dhaqaaji waayay waxaa heshiis siyaasadeed laga gaaray arrimaha ay ka mid yihiin hannaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya asteynta awoodaha hay-adaha dowladeed ee heerarka kala duwan federaaleynta nidaamka garsoorka dalka federaaleynta arrimaha maaliyadda ee dalka qaabeynta amniga qaranka heshiisyadaas waa kuwa siyaasadeed oo ay dhici karto mararka qaar in golaha wadatashiga qaranka ku kala aragti duwanaayeen laftoodu muddadan hase yeeshee waxaan la isku diidanayn in aan la isku colaadinayn qof ama hay-ad inay ka yeelan karto aragti gaar u ah iyada waxaana waajib ah aragtidaas gaar ku ah in laga dhagaysto lagalana fadhiisto lagalana doodo si loo gaaro wadar ogol hase yeeshee waxaa ayadana muhiim ah in aragtidaasi aanay noqon dabar ku xiran dhammaystirka howlaha masiiriga ee dowlad dhiska gaar ahaan dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa kala ra'yi duwanaan karnaa waana doodi karnaa waana muxuu ahay laakiin marna waa inaysan ku noqonin dabar aan laga gudbi karin oo laga dhaqaaqi karin oo meesha lagu nagaanayo muddo kale oo aan la garanayn aan doodno aan isqabsanno laakiin marka u dambaysa mar walba waa inaan israacnaa oo aan taladii dhinac u badinaa sida aad la socotaan mudanayaal iyo marwooyin dhismaha jamhuuriyadda saddexaad ee ka soo bilaabatay carta mahade ha ka gaarto walaalaheen reer Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelabe ee 23 sano ayaa ka soo wareegtay waqtigaas isagoo soo maray dhismaha dowladdaas hanaqaadkeeda duruufo iyo marxalado kala duwan muddadaasi 23 sano ah talada dowladnimada waxay marba gacanta ugu jirtay siyaasi oday dhaqameed iyo erga kooban oo dadka Soomaaliyeed ka tirsan iyada oo markasta maqnayd kaalintii shacabka ama kaalintii muwaadinka Soomaaliyeed oo ku lahay talada masiiriga ah ee ummadda iyo sida loo masalayo taas waxay keentay in dowladnimadeennu aan u maareyn weyno sida dunida kale ay dowladnimadooda u maareeyaan sidoo kale xaaladaasi waxay sababtay in dowladnimadeenna iyo dalkeennuba noqdaan kuwo ku nool cabsi argagax gargaar iyo kaalmo dibadda uga timaada ayadoo dalkeenna lagu sheego inuu yahay dal hodan ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku manaystay khayraad kala duwan oo aan la soo koobi karin si arrimahaas aan soo sheegay looga gudbo waxaan u baahannahay inaan dib isu qiimeyno oo aan guddoonsanno talo aan uga baxno
hubanti la'aanta ku hareeraysan guud ahaan mustaqbalkeenna gaar ahaan dowladnimadeenna isla markaasna aan gaarsiino dalkeenna iyo dadkeennuba inay ka baxaan gacan hoorsiga iyo faqriga una dhaqaaqaan dhinaca horumarka iyo isku filnaanshaha iyo hodantinimada kuwaas oo ku iman kara in dalkeennu helo maalgelin gudaha ah iyo mid dibadda ahba kuwaasoo ku xiran in dowladnimadeennu tahay mid ku dhisan talada dadkeenna iyo sarraynta sharciga sidaa daraaddeed golaha wadatashiga qaran wuxuu gaaray go'aanno siyaasadeed oo bilow wanaagsan u ah tala u dhaxaysa dadka oo dhan golaha wadatashiga qaran wuxuu ku heshiiyey in la dhiso dowlad sharciyad leh ku dhisan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo qaadi karta himiladooda goluhu wuxuu isku raacay in talada loo celiyo muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo la siiyo fursad ay ku doortaan cidda ay ku aaminayaan dowladnimada ha noqoto heerka dowladaha hoose ee deegaanada laga xoreeyay kuwa laga xoreeyay shabaab iyo kuwa lagu xoreyn doono khawaarijta mar dhow haddii aan la yiraahdo iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo hay'adaha dowladeed ee heer federaal haddii aan la yiraahdo wuxuu isku raacay in jaanta la isla helo isla helaan heerarka kala duwan ee dowladeed ee aan kor ku soo sheegay intaa waxaa dheer in goluhu ku talinayo in nidaamka xukun hogaamineed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya noqdo madaxtooyo oo gacan ka geysan kara in isqabqabsiga siyaasadeed ee horay loo soo arki jiray oo meesha ka gudbo walaalayaal taariikhdeenna haddaan dib u milicsano 1960kii markaan xukunka xorriyadda qaadanay ilaa maanta aan joognahay marna nooma suuroobin inaan helno dowlad degan oo dalka hadday tahay 9 sano oo aan dimuqraadiyadda lahayn iyo hadday tahay carta wixii ka dambeeyey intii u dhaxaysay oo dee muxuu ahay kacaankii iyo muddadii maxaan ku rahday fududeed maba ayan jirin laakiin ra'iisul wasaare iyo madaxweyne kuwa dadka ugu saaxiibsan markay isu yimaadaan xataa marka dambe talada laana powerka qaybsanaantiisa waa mushkilku xakiinaya dalku inuu hal jiha yeesho oo parliamentarian noqdo iyo inuu presidential noqdo wax u dhaxeeyay waa noo shaqay waay wixii noo shaqay waay inaan mar walba ku celcelinaane cabsi aan cabsanayno kala shaki aan annagu kala shakisanahay awgeed aan annagii dhammaay aan dabranaan macquul maaha talaan soo jeedinay dalku inuu presidential noqdo laakiin waxaan rabaa inaan halkaan ku xaqiijiyo baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed walwalka iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaabaha badan ee la dhaxgeliyay ee la xiriira talada muxuu ahaay golaha wadatashiga qaran in halka baxo walaalayaal sidaan hore hadalkayga ugu jirtay wax kasta oo la soo gaaray waa heshiis siyaasadeed waay oo golahaas ay soo gaareen laakiin heshiis siyaasadeed dalka laguma dhaqee dalka sharciga lagu dhaqaa qaanuuna lagu dhaqaa dastuura lagu dhaqaa intaasina meesha ay ka soo baxaan manbaca u ah waa halkan waa golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labadiisa aqal waay sharci aan halkan soo marin dib u eegis dastuur aan halkan soo marin dastuur aan qodobadiisa halkan inta looga doodo aan la soo marsin dalka lagumana xukumi karo lagumana xukumi doono haddii aan la yiraahdo waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay lahaadaan kalsooni talada mar walba waxaan leenahay shacabka u soo noqoto shacabka u soo noqoto meesha ay ka bilaabato oo wakiiladii dadkii shacabku soo doorteen ee danahooda masalayay waa baarlamaanka isaga lafsidiisa aanay ku ekaanayn oo inay ka sii baxdo oo ay shacabka iyo qaybaha kala duwan ee dalka iyo dadku meelaha ay degan yihiin taladu inay gaarto oo ra'yigooda ay ku darsadaan ay tahay waxaan rabaa walaalayaal go'aamada golaha aan sheegay ay soo gaareen waa tallaabtii koowaad ee loo qaaday sahanka ama safarka 1 kilomitir dhankiisa safarkii 1 kilomitir ahay maristiisa idinkaa idinka sugaya idinta alla haddii aan soo mari weynay safarada qaarkood dhowr iyo 10 sano ama dhowr iyo 20 sano markaan waxaan u baahnaa dhowr usbuuc iyo dhowr bilood inaan ku marno haddii aan la yiraahdo waa ku kalsoonahay waa hubaa inaad kari kartaan anad yeeli kartaan
heshiisyadaas waxaa u dhiman talada shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawliga ah oo matala shacabka Soomaaliyeed oo uu ugu horeeyo baarlamaanka federaalka ah ee maanta aan hortaaganahay ma jirto cid dadka Soomaaliyeed ku xukumi karta xoog iyo dirqin 33 sano waxaan u joognaana waxay ahayd damac dad badan ku jiray dalka in xoog iyo dirqin lagu xukumi karo waa lagu xukumi waayay inaan isku sii daynahay macna ma sameynayso dadka Soomaaliyeed ayagaa la weydiinayaa talada qaabkii loo weydiin lahay iyo wadiiqooyinkii lagu weydiin lahayna waa noo dhisan yihiin oo waan qabnaa marka dadka iyo xukunka xoog ku raadisi iyo muxuu meelo gaagaaban oo maxaan ku rahay luuq aan uga soo baxaya iyo sheekadaas waxaan u malaynayaa waa nagu filan tahay gudoomiyaha golaha shacabka hadda halka wuxuu ka sheegay 1969 ayaa doorasho u dambeysay dadka meeshaan joogay in badan oo kamid ah kadib ay dhasheen waqtiga in badan oo kamid ah oo aniga iyo odayaasha saaxiibada ay ugu horeeyaan waa joognay laakiin ma aanan coday 69 oo waxa la yaabaa da'di lagu codayna inaanan gaarin marka waa garan karnaa wada noo falano aan raacno ma qabna wada inaan falanaana laga rabaa wada aan qaadno oo nageysa ceel biyo leh inaan falanno oo aan marno ayaana laga rabaa howl noo taalo waaye dadkay ugu horeyso u taalo oo mas'uuliyadaas lagu aaminay kitaabka quraanka kariimkaana gacanta u saarayna waa idinka iyo annaga oo aad nasii ogolaateen amana doorateen amana aqbasheen oo xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiraduna ay ku jiraan oo qaar kamid ah ay labada xil isku hayaan halkan fadhiyaan sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan kula dardaarmo dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed hayaanka looga guurayo fadhiidnimada siyaasadeed ee dhismaha dawlad qaran dhisideeda dhismaha dawlad qaran yaan laga raadin dano siyaasadeed oo gaar ah iyo masaalix kale oo gaar ah balse ha lagu eego dareen u adeegaya dadaalka wadajirka ah ee dadkeena iyo dalkeena ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in inta uu ku guda jiro kalfadhigiisa saddexaad siiyo mudnaanta ugu sarreysa iskuna howlo dhamaystirka dib u eegista dastuurka qabyada ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isagoo ku saleynaya dabcan heshiisyada siyaasadeed ee aan soo gaarnay halkan ku falanqeynaya ee ku maxaan ku raafuraya ee ku ansixinaya ku aqbalaya haddii alla yiraahdo si fursad loo siiyo muwaadin kasta oo doonaya inuu taladiisa ku kordhiyo dhamaystirka iyo dib u eegista dastuurka iyo sidoo kale in baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu siiyo hortabin siinta sharciyada kale ee muhiimka u ah xoojinta qaybaha kala duwan ee horumarinta dawlad dhisidda sida sharciga xafiiska hanti dhowrka guud ee dawladda oo wali aan noo ansaxmin kalfadhigii horena laga gaari waayo haddaan intaas uga baxo arrimaha amniga iyo dawlad dhisidda aan u imaado dhaqaalaha mudanayaal iyo marwooyin haddii aan u soo noqdo dhinaca dhaqaalaha waxaa howl wanaagsan laga qabtay dhammaystirka dayn cafinta dalkeena oo furo u noqon doona inaan awood u yeelano kobcinta dhaqaalaheenna sida fududaynta maalgashiga gudaha iyo kan dibadda ee khayraadka kala duwan ee dalkeenu leeyahay oo tan iyo markii Allah subhanahu wa ta'ala nagu manaysay inaan si waxtar leh uga faa'iideysan walaalayaal dalkeenu waa dal qani ah khayraad aad u fara badan waa leeyahay aqoontii aan ku soo saaro lahayn iyo awoodii dhaqaale aan ku soo saaro lahayn waxbaa naga dhiman sidaas daraadeed waa inaan sida caalamku u dhaqmo intaan u dhaqanno aan teknolojiyada casriga iyo maalgashiga casriga ee dunida aan soo dhaweyno annagoo mar walba muhiimadda koobaad siinayno danaheena iyo masaalixdeena iyo deegaankeena ilaalinayno xildhibaanada sharafta leh walaalayaal sida aad ogsoon tihiin arrinka dayn cafinta waa mid soo socday muddo 10 sano ah saddex dawladood isaga soo kala dambeeyeen waxaan bogaadinayaa in geedi socodkii dayn cafinta uu mar walba ahaa mid ka caagan siyaasad ee labada heer xukuumadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay leedahay ay ka wada shaqeeyeen sidii loo dhaqan gelin lahaa dayn cafintaas
arrinkaas wuxuu suurto geliyey inaan buuxinno 80% shuruudihii ku xidhnaa deyn cafinta 10 sano ka hor kow waan ka soo bilaabnay dadka xasuusto oo meeshaan fadhiyo oo ka soo bilaabay ayaa joogay SNB 1 staff monitoring program 1 yaan ka soo bilaabnay ilaa maanta 80% aan shuruudihii nalooga baahnay aan soo buuxinay waxaa noo dhiman waayo 100% nalagama rabo laakiin meeshiina laga rabay waxa nooga dhiman waa wax aad u yar oo kooban mana aha dhammaan sharciya ma aha dowladaha ku jiray siyaasadaha ku jiray taageero dowladeed oo lala-aayaa ku jirtay cafin deymaha dowladuhu ay gaarku noogu leeyihiin oo in badan la xaqiijiyey ayaa ku jirtay lacago aan u baahnayn inaan shubno si aan hore ugu soconnaa ku jirtay oo dowlado kale oo saaxiibo ah ay naga shubeen markii ay arkeen ku qanceen inaan soconno oo aan hore u soconno haddii kale nalagama shubina nalagamana cafin lahayn sidaas daraaddeed dabayaaqada sanadka 2023 ilaahay idankiis deynta waa nalaga cafinayaa waan ku guulaysanaynaa in deynta nalaga cafiyo wax kasta oo deynta nalagu leeyahay awgeed nooga dabranaane ilaahay idankiis way noo furmayaan haddii alla yidhaah laakiin waxaan rabnaa baryo dhoweedna aan dhowr meelo kale uga dhawaaji 5 bilyan oo dollar oo dulsaarka ku jiro ayaan waxaan la rafanaynaa hadda 10 sano aan leena nalaga cafiyo akhiiran wadajirkeenna iyo dadaalkeenna iyo kaalmada saaxiibada dhabta ee Soomaaliya ay leedahay ilaahay idankiis waa ku guulaysanaynaa muddo dhow in nalaga cafiyo markaas waxaa noo furmaaya inaan deyn qaadan karno deyn intaan soo qaadanno miyaan haddana mushaarkana isaga bixinnaa shaahiga xafiisyada aan ku cabbaynana isaga bixinnaa gawaarida aan wadannana aan shidaalku kula shubannaa haddii Soomaaliya xor ahayday oo dowlad ahayday muddo 30 sano ah 5 bilyan oo dollar lagu yeeshay oo deyn macal dulsaarkiis ah annaga muddo kooban 100 milyan lagu yeelanayaa haddaanan caqli iyo siyaasad iyo istiraatiijiyad aragti fiican ku salaysan aanan la imaan maslaxadi kuma jirto ilamana qumana in marna ay raja naga gasho oo aan yeelno inaan deyn intaan soo qaadano aan mushaar ku bixino inaan deyn intaan soo qaadano aan running cost xafiisyadeenna aan ku bixino si aan uga maaranno oo aan uga kaaftoonno sidaas inaan soo qaadano dekad ku dhis airport ku dhis waddo 1 kilomitir ku dhis isbitaal meel hebel uga dhis maxaan ku yidhaahdaa mashruuc hebel beer wax soo saar ha lagu tacbo badda ha lagu horumari waxyaabo badan mashaariic horumarineed oo dadka noloshooda wax ka beddelaysa ayaan deynka u qaadanaynaa laakiin goormaan qaadan karnaa marka waxa aan sheegay aan isaga filnaano mushaarkeenna running costiga dowladda qarashaadka yaryarka ee soo noqnoqda ee aan hal mar ahayn wadda haddii la maalgeliyo waa mar laakiin mushaarku mar walba waa soo noq si kasta u yaryahay waa soo noqon sidaas daraaddeed walaalayaal baarlamaanka federaalka ahow waxaa idiin imaan doono shuruuc cusub iyo kuwa dib u eegis lagu samaynayo oo looga dan leeyahay dakhliga dowladda mustawa kasta ha aatee in kor loogu soo qaado ilaha dakhliga ah ee aan leenahay in la badiyo meesha hadda ay yihiin dhowr ilo yar oo si aan standard ahayn ama aan waafaqsanayn nidaamka maaliyadda caalamka uu ku dhaqmo ayaan u dhaqannaa inaan ka baxno sida aan leenahay dowladnimada caalamka sida loo maareeyo aan u maarayno nidaamkeena maaliyaddana sida aan adduunyadu ay nidaamkeeda maaliyadda u maare adduunyadu dalalku waxay ku horumaraan cashuur muwaadiniinta ay bixiyaan inaan marka ku dhiiranno inaan xoolaheenna iyo xooggeenna aan ku habayno dalkeenna waa aragnay markaan danteenna u istaagno inaan wax xaqiiji karno mid kastoo idinka mida walaalayaal xildhibaanada sharafta loo qiyaas haddii aan 9 bilood ka hor dhihi lahayn amisom han hor kacdo amisom wax badan ay qabteen waa noo dhinteen dowladnimadana inay istaagto oo institutionkaani dhismaan ayay qayb badan ka qaadatay ma inkirayno weligeen waanan xusaynaa waanan aqoonsannahay wanaaggooda waan uga mahad celinaynaa waan uga balahaynaa laakiin meelayn soo gaadhsiinay annagu ay caajisaan
oo ay niyad jabaan oo ay iska joogaan waan tashanay haddii aan ku qancin maagno in ayna horkacaan inay adag tahaan aragnay annagu aan kacnan dhaan marka aan dhaqaaqno meeshii ay deganeed amisom maalintaas oo ahayday frontiga waxaa loo yaqaano FOB frontline operating base oo shabaabka derbiga shabaabka xiga ayagu ahay maanta meelaha qaarkood 300 kilomitir ciidamadeenu u jiraan ay ka gudbeen ay ka horumareen ay sii socdeen keligoodana socday adduunyadu way ku qanacday inay dhab naga tahay dalka inaan amnigiisa iyo dowladnimadiisa dib u soo celino waana lagu taageeray kaalmo aanan awal hore u heli jirin oo arrimaha amniga iyo difaaca ku saabsan ayaan ku mutaysan inaan helno sidoo kale wax kasta oo dowladnimadeena dhisaya markaan annagu inta go'aansano aan ku dhaqaaqno markaasaa kaalmo aan helaynaa waa nalaga caajisay 33 sano muddo dhow ma aha in weli nala sii barataabayo ayaa waxay tahay wax aad iyo aad u weyn oo abaal looga qaado muxuu ahay caalamka intiisa kale marka haddii la arko inaan dhaqaalaheenni iyo canshuurteenni iyo nidaamkeenni intaan habaynay aan hore u soconno dalka dib u dhiskiisu wuu fududaanayaa waana soo degdegayaa safarka dalka in dib loogu dhisaa wuu soo koobmayaa ilaahay idinkiisa mudanayaal iyo marweyn waxaan doonayaa inaan bogaadiyo dadaalka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay bilowday ee ku abaaran la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xatooyada xoolaha dadweynaha waa dadaal cusub oo aan hore u soo dhicin oo hadda bilow ah oo socda marna looma dul qaadan karo walaalayaal shilinka laga soo qaado wadaha bajaajta ama doolarka laga soo qaado andhaho wadaha bajaajka ama gabadha Soomaaliyeed ee wadada dhinaceeda shaahiga ku gadaysa shaahiga ay gadayso sokorteeda cashuura laga soo qaaday cashuurtana ayada laga qaaday bajaajlaha waad aragteen inta ay awoodiisa iyo qadamtiisa ay leegtahay iyo cid kastoo kaloo ganacsata oo dalka joogta iyo adiga mishaarkaaga yarka ah oo ay waxtarkiisu inta aad aragtay la eegyo kooban yahay iyo inta kaasi mishaar yaroo aad u sii yar canshuurta laga qaaday in nin qaato ee daara ku dhisto dalka iyo dibaddiisaba hanti ka sameeyo lacagta asalkeeda meeshaas ka timiday wax oo la aqbali kara ma aha lama samayn karo raalli kama noqon karo damiirkeenu nama siinayo ilaahayna waa nagula xisaabtamayaa lianna dadkii inay celiyaan ay ahaydeen waa annaga u taagan canshuurta dadka aan ka qaadno ayaan leenahay tuuga qaadanayana aan ka celinaan leenahay labadu waa isbarbar socdaan kalama hari karaan kalama maarmeyn karaan lama ogola mana ogolaan karno xatooyo xoolaha babliga ee 20 milyan ee Soomaalida ee dalka iyo dibaddiisaba ku duruufaysan ka dhaxeeyo ay magacooda lagu keenay in la qaatay sax ma ah oo si sharci darro ah lagu qaataa walaalayaal masiirkeena iyo dalkeena ku xiran inaan ilaalino intaas waan ilaalinaynaa waxaa naga go'an in cid kasta oo xadda xoolaha dadweynaha la marsiiyo waxa uu sharcigu ka qabo shuruuca ka degan nidaamka ka yaal qawaaniinka ka taal qaanuunkaas wuxuu ka qabo in muxuu ahay la horgeeyo maxkamadda fariintayda maanta fursadan aan uga faa'iideysanay waxay tahay xoolaha dadweynaha ha la nabadgeliyo ha laga leexdo ugu dambeyntii waxaan hadaljeedintayda ku soo gunaanadaya si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya raalliga hada doqona daqaad waxaan rabaa dastuurka waxyaabaha aad iyo aad loogu dhaxrafto oo dadku ay fasiraada ka yeelaan walaalayaal dastuurka inuu qabyo yahay waa isku waafaqsanay iskuma diidan in la dhameystiro waajibna saaran inay tahay oo aan ka shaqeyno dhameystirnan wala iskuma hayo sida uu hadda yahay waa sida aan hadda ku dhaqmaynahay dabcan laakiin waa bedelmaya markii asiga la bedeli tago
oo qodob wax lagu kordhi tago oo qodob wax laga dhimi tago oo qodob cusub la keeni tago haddii la yiraahdo dastuurkiya meel looga dhacay iyo dastuurkiya la waxeeyey haddee afsalax ku dheg soo maaha afsalax ku dheg marka ma galno dastuurka waa la qalayaa waa la faafinayaa waa la kala qaadayaa kii noo fiicanna meeshiisuu noo joogaa qodobkii nagu habboon oo duruufeena maanta ka jawaabayo kii kale oo in la bedelo u baahan waa bedelaynaa kii meeshii wax lagu kordhiyo u baahan waa lagu kordhinayaa meeshii in laga dhimo ama laga bedelo u baahan waa ka bedelaynaa kadibna insha allahu dastuurkeenna qodobaa ku jiri doono waa sida ay rag badan iyo gabdho badan oo baarlamaan ka tirsanba ay qabaan oo igula sheekaysteen in la xadido waqtiga dastuurka dib u eegista lagu sameynayo dastuurka laftiisa lagu sheego duruufuhu dalku waa isbedelayaan shalay meeshii aan joogno maanta ma joogo berri ma joogi doonno ilaahay idankiisa laakiin dastuurkeenu wuxuu ku salaysan yahay duruufaha maanta jira 10 sano kadib 5 sano kadib wixii la gartaba duruufaha dalka insha allah waa sii qurxoonaanaya dastuurkeena aan sii qurxoon marka in la yiraahdo dastuurka 10 sano kadib yaa lagu sameeyaa dib u eegis 10 sano lama taaba karo waa la dhowraya waa lagu dhaqmaya laakiin waa la waxayna dastuurku munazzal ilaahay aayad quraan ilaahay soo dejimaa fikir asku keensanno waa in minida daqiiqad kasta walax la iloobay iyo walax oo maxaan ku raaa lagu qaldoomay ay ka soo dhax bixi karaan waana la taabanaya hadii alira ugu dambeyn waxaan rabaa si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kal fadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waa noo furaya aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh